بسم الله الرحمن الرحيم. xildhibaanada culumada ugu horeeyay Sheekh Nuur haweenka miidiyaha sharafta leh dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba iga daawanaysaan marka hore waa salaamay marka labaad waxaan ku bilaabayaa horta inaan aad ugu mahadceliyo guddiga gurmadka qaran oo aan kaliya horseed ka ahayn la dagaalanka abaaraha afee ummadda Soomaaliyeed laakiin iftiin u ah isku filnaashada ay ummadda Soomaaliyeed hiigsanayso guddigani wuxuu tusaale ka yahay haddii ummadda Soomaaliyeed isku timaado inaan anagu isku tashanno inaan isu gurman karno dhibaatadana ka bixi karno sida aan hore u sheegay inta hooyo Soomaaliyeed ee meel ku gaajoonayso inta wiil yar ama gabar yar ay meel ku dhibaatoonayso inta qof Soomaaliyeed oon iyo haraad u dhimanayo kulligeen waxaan ugu waajibaa in arrinka abaaruhu uu ahaado arrinka ugu horeeya oo aan siino ahmiyadda koowaad hore ayaan sheegay xukuumaddeedu maalin walba oo ay isugu timaado shirka golaha wasiirada khamiis walba waa ka hadalnaa arrimaha abaaraha waa isxasuusinaa dhibaatada ku habsatay ummadda Soomaaliyeed waxaan marka hore u mahadcelinayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool meel walba oo runtii maalintii aan la hadalnay aniga Sheekh Nuur Baaruus intii ka dambeysay sida sheekhu idin sheegay 10 jibaaray taakuleyntoodii waxaa kaloo mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed magaalo walba ay dunida ka joogaan oo istaagay inay dadkooda u soo gurmadaan waxaan mar labaad ku celinayaa sida aan hore u sheegay oo shacabka Soomaaliyeedna ku boorinayaa in aan caawinaad laga sugayn cid kale waxaan aaminsanahay malaayiin dollar oo aan ka sugno dalka dibaddiisa waxaa ka qiimo badan dhowrka milyan oo dadka Soomaaliyeed jeebabkooda laga soo bixiyay in ummadda Soomaaliyeed iyadu ay isu gurmato waxay ka mid tahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed ay xanuunkeeda isu dareentay iyadu waxay ka mid tahay dib u dhiska qaranka in annagu aan dadkeenna oonka iyo haraadka uga gurmano iyada lafteedu waa hammi iyo yididiilo cusub oo soo jeedinaysa inuu bilowday dariiqii aan uga bixi lahayn dhibka waxaa maalin dhawaad iigu yimid xafiiskayga xildhibaanada ka tirsan guddiga kormeera arrimaha abaaraha waxay igu yimaadeen inay la xisaabtamaan xukuumaddeeda oo ay weydiiyaan su'aalo la xiriira in dowladda Soomaaliyeed ama xukuumaddu ay bixiso lacagihii ay ku yabo waxaa horta aad u wanaagsan in dalkeenna uu ka bilowday isla xisaabtankaasina waa arrin aad u muhiim ah waxaan u sheegay xildhibaanadii oon uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen intii aan garanayay su'aal ka mid ah su'aalihii ay weydiiyeen oo aan garan waayayna waxaan u sheegay inaan warqad u qori doono wasaaradda maaliyadda iyagana aan koobi siin doono warqadina waan u qoray wasaaradda maaliyadda guddigana waa ay joogaan oo idin caddayn doonaan waxaan runtii aad u soo dhaweeyey in iyagoo ka damqanaya abaaraha dadka Soomaaliyeed haysta iyagoo la duuban guddiga gurmadka qaran inay u yimaadaan xukuumadda si ay ula xisaabtamaan waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inay baarlamaanka xildhibaanadiisu mushaarka yar ama gunnada yar ay qaataan ay ka bixiyaan qaybtooda waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed
in qasnada bangiga dhexe akoonka nambarkiisu yahay 750 ay ku jirto lacag dhan 803,279 oo iska leeyihiin guddiga gurmadka abaaraha oo ay ka doonan karaan maalinta sabtiga haddii ilaahay waxaa kaloo ballan qaadayaa in shilinkii laga gooyo qof Soomaaliyeed oo loogu talagalay guddiga gurmadka abaaraha in laydinku soo wareejin doono waxaa kaloo sheegayaa halkan ka cadeynayaa inaan loo dulqaadan doonin musuqmaasuq haddii ay jirto qof Soomaaliyeed oo dawladda ka mid ah xukuumadda ku jirta ama guddiga ka mid ah ama kaam qaxooti hor taagan oo qiyaamaynaysa wixii dadka Soomaaliyeed loogu talagalay fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo sheegtaan aniga waxaan idinka ballan qaadayaa in lala tiigsan doono sharciga kuwiinan caadaystay inaad kaamam qaxooti u furataan dad dhibaataysan ka hor istaagtaan in raashinka loo qaybiyo eegtaan dad dhimanaya oo gaajoonaya aad idinkuna iyaga u haysataan maxaabiis oo kale laydinka aqbali maayo waxaan ku amrayaa hay-adaha dawladda ee ka shaqeeya amniga inay sida uga dhaqsaha badan arrimahaas wax ka qabtaan waxaan ka codsanayaa guddiga iyo maamulka gobolka Banaadir oo howlahan ka shaqeeya inay soo ogeysiyaan dawladda iyo xukuumadda inteeda kale sidiisaba musuqmaasuqu waa waxa aad u dhibaateeyay dalka Soomaaliya haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban nabadgelyada wax lagama qaban karo musuqmaasuqa haddii aan wax laga qaban abaarahaan sidaasay noogu soo noqonayaan haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxba lagama qaban karo haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban dawlad wanaag weligeed dhacmayso haddii aan horey musuqmaasuqa wax uga qaban weyn annagoo hadda bilownay shaqadiisa ugu yaraan waa inaan xoojinaa wax ka qabadka musuqmaasuqa annagoo ka dhigayna qayb ka mid ah gurmadka abaaraha si musuqmaasuqa uusan u aafayn dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan eeg waddankana wuxuu leeyahay dad Soomaaliyeed oo maskaxdooda aad u badan dalkani wuxuu leeyahay dhul iyo bad aad u barwaaqaysan dalkani wuxuu leeyahay dad Soomaaliyeed oo haysta diinta Islaamka oo kulligood isku diin ah isku af ah isku dhaqan ah isku sina u yaala markaad muuqaalkooda eegto dalkani wuxuu leeyahay nimcad aan cid kale lahayn laakiin maadaama aan annagu isu tanaasuli weyn maadaama aan isu dulqaadan weyn maadaama aan danta qaranka iyo danta guud ka hormarin weynay danteena gaarka maadaama aan qabyaaladda Soomaalinimo ka dooran weyn maadaama aan aragti fog ku doorsan weynay aragti gaaban maadaama aan cadaalad ku doorsanay cadaalad darro maadaama aan dawlad wanaag dawladnimo ku doorsanay ayaan waxaan taaganahay meesha aan taaganahay maanta ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan u sheegayaa kuna baryayaa inay inaan kulligeen Ilaahay ku toobadkeeno kulligeen Ilaahay inaan weydiisano dambi dhaaf ilaahayna uu naga cafiyo dambiga waxaa kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inaan aqbalno inaan ka shaqayn weynay wixii jiilka naga dambeeya xaq noogu lahaayeen waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan ka qirayaa aniga iyo Sheekh Nuur iyo Batuula iyo dadka halkan taagan ee xildhibaan Baane in aan ku saaxidnay inaan siino dadka Soomaaliyeed oo naga da'da yar Soomaaliyada ay xaq ugu lahaayeen
haddii marka qof idin ka mid ah halkan uu joogo oo weli ku mashquulsan inuu ka fikiro qabyaalad oo weli ku mashquulsan dowladnimo xumo oo weli ku mashquulsan inaan la isu tanaasulo oo weli ku mashquulsan inaan la isu dulqaado waxaan ku sheegayaa waqtigaas waa la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego khibradeyda adduunyada meel walba oo dad Soomaaliyeed ay joogaan hoos baan loo eega meel walba oo aad istaagtid haddii aadan hadlin midabkaada iyo shakligaada waa la ogyahay inaad Soomaali tahay aeroboor walba oo tagta waa lagu joojinaya xuduud walba oo tagta waa lagu istaajinaya dunida meel walba oo Soomaali ku nooshahay dhibaato ayaa haysata war qofina sharaf ku yeelan maayo dalka dibadiisa haddaadan marka hore dalkaada sharaf ku lahayn haddii aad shaqo ka bilowdo meel adduunyada ka mid ah oo aad mustaqbal gaarto dadka ajnabiga aad la shaqayso way ku faaninayaan maxay kugu faaninayaan ma taqaanaa waxay kugu faaninayaan wax aad u malaysa inay tahay faan laakiin cayb waxay ku leeyihiin adigu Soomaalida kale waad ka duwan tahay waxay ku leeyihiin dadkaadu way saaqideen adiguna maxaad u saaqidi weysa waxay ku leeyihiin yaa Soomaali ka filanayo wanaag yaa Soomaali ka filanayo horumar أنا أدين شيء أنا قاعد كفلنا إن الصومالي ده وناك أنا قاعد الصومالي ده كفلنا إن خروجنا هذا ركتان إن حلبان دي الصوماليات الحكومة دي العلوم دي الهوانكي الغليرة دي إن عدوى البحتاج انتهاي إن يوحك قبطان قلمت كعبارة waxaan qof walba oo Soomaaliyeed oo idaawanaya maanta u sheegaya haddii aad xoolo haysato oo aadan dadkaada ku saacidin waxba kugu tari maayaan xoolahaas haddii aadan maanta dadkaada wax u tarin ma imaanayso maalin ay ka muhiimsan tahay oo ay dadka Soomaaliyeed ugu baahan yihiin sida aan isugu gurmano maanta waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed sida aan isu ixtiraamno isu kaalmayno niyad wanaag dadkeena wax ugu qabanno waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda dalka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa abaartan inaan ka soo baxno annagoo inta hore ka xoog badan waxaan rajeynayaa abaartan inaan ka baxno haddii Ilaahay yiraahdo annagoo wax ka baran waxaan rajeynayaa abaartan inaan ka baxno annagoon raadsan kalluun aan tuugsano laakiin baranay sida loo kalluumaysto waxaan rajeynayaa abaartan inaan ka baxno annagoo ogaanay in Soomaalinimadu ay ka fiican tahay qabyaaladda in Soomaalinimadu ay ka wanaagsan tahay qabiilka waxaan rajeynayaa inaan ka baxayno abaartan annagoo og waxaan nala kula xisaabtamayo ama nalagu colaadinayo ma ahan qabiil hebel waa magac Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa marka inaad marka hore qof Soomaaliya tahay maadaama aad marka hore qof Soomaaliya tahay waa inaan Soomaalinimada ognahay waxaan ugu dambeyntii idin ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo in aniga iyo xukuumadeyduba aan diyaar u nahay inaan idinkala shaqeyno wax walba oo aan awoodno oo la xiriira sidii looga bixi lahay abaaraha waxaa kaloo xukuumadeydu haddii Ilaahay yiraahdo ka shaqeyn doontaa in la keeno nidaam looga gudbi karo abaaraha inaan intaan daraasayno sababtay abaarahan noogu soo noqnoqonayaan
aan keenno qaab cilmiyeysan oo ugu gudbi karno abaaraha laakiin wax walba waxaa ka horeeya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ogaadaan dawladda ama xukuumadda la sheegayo iyaga inay tahay annagu inaan nahay adeegayaashooda yaanay cidna ka sugin inay dalkooda u hagaajiyaan yaanay cidna ka sugin inay qarannimadooda dhisaan haddii qof Soomaaliyeed oo daawanaya maanta uu walwal ka qabo annagu inaan diyaar u nahay inaan dalkeena u shaqeyno waxaad eegtaa Sheekh Nuur Baaruud waxaad ku qoos qaadataa Sheekh Nuur Baaruud telefoonkiisa uma jeediyo waa ogyahay cidda soo waca dariiqa uma jeediyo wuu ku socdaa dadka uma jeedo wuu kala garanayo ma garanaysiin sababta qalbigiisa weyn haddii Sheekh Nuur Baaruud uu bilaabo shaqo marka uu salaada subax tukado si dad Soomaaliyeed lacag ugu aruuriyo uu shaqeeyo ilaa habeenkii 6 saac isagoo dad Soomaaliyeed lacag u aruurinayo oo isagoo wax haysan midda uu haysto yar uu ku yaboohayo Soomaaliya intaas ku qoosqaa أنا دين شيء يا دبعته ولا صومرة الدنيا ده دبعته وهي صومرتي لكن ولا جبها ومدة صومالية ده فرصة ده ما أنت أيام كبه كرنا دبا هذه كبر يا إن تصدق الغلطة هذه قعد سنة يا إن القبيلة تسكتيسان وحاني كبر يا إن المصومات تقمر له سوى الجسد وحاني كبر يا إن القوة يستعمل استدان شرفتي كرامة المتصومر السؤالين السلام عليكم ورحمة الله